kooxda Athletic Madrid ayaa garoonkeeda Old Trafford ku reebtay kooxda Manchester United iyadoo lugtii hore ciyaar ka dhacday magaalada Madrid ay barbardhac labada dhinac ay ku soo wada galeen. United oo gurigeeda joogta ayaa inta badan ciyaarta maamuleysay iyadoo daqiiqadihii ugu horeeyay ciyaarta weerarka United uu ahaa mid halis badan ku abuurayay daafacyada kooxda martida ee Athletic Madrid. ciyaartoyda kooxda Athletic Madrid ayaa inta badan maanka ku hayay guul ay ka gaaraan garoonka Old Trafford inay u gudbayaan wareegga sideed dhamaadka koobka Champions League oo maalinta Jimcaha la sameeyay isku adkiisa. qaybtii hore ciyaarta daqiiqadii 41 inta la aadin nasashada ayaa kooxda Athletic Madrid waxay qabatay hoggaanka ciyaarta iyadoo mar kaliya isbedelay jawiga garoonka Old Trafford kadib markii loo dhigay ciyaaryahanka kooxda Athletic Madrid uu shabaqa United dhex dhigay kubad madax ahayd oo baas uu ka helay Anthony Griezmann. gool iyo waxba ayaa lagu kala nastay qaybtii hore ciyaarta. markii la isku soo noqday qaybtii labaad ee ciyaarta kooxda Manchester United ayaa sameysay isku day walba ay ku keeni lahayd goolka bareejada iyo midkii soo nooleen lahaa rajada u gudbinta wareegga sideed dhamaadka tartanka Champions League. tababaraha kooxda United oo isbedelo sameeyay ayaa wax macna u keenin maadaama kooxda martida ahayd ay daafacdeen goolkooda taasi oo soo afjartay rajadii kooxda Man United tartanka Champions League. Cristiano Ronaldo oo maqan joogo ka ahaa ciyaartan ayaa isagoo murugaysan ka baxay garoonka Old Trafford isla markaana waxaan salaan iyo sagootin midna u sameeynin taageerayaasha ka filayay inuu guul ku hogaamiyo kooxdiisa. ugu dambeyn kooxda Athletic Madrid ayaa wareegga sideed dhamaadka oo u gudubtay isku dar 2 gool iyo gool waxayna hadda sugaysaa isku aadka wareegga xiga. dhinaca kale kooxda Benfica ee dalka Portugal ayaa iyaduna u gudubtay wareegga sideed dhamaadka koobka Champions League kadib markii kooxda Ajax Amsterdam ay ka reebtay gurigeeda. ciyaar xiiso badan oo labada dhinac ay soo wada bandhigeen. kulankii hore oo garoonka Benfica ka dhacay ay labada koox ku soo kala baxeen barbardhac min 2 gool ah. Ajax oo ka warqabtay inay haysato fursad aad u weyn maadaama ay joogto gurigeeda ayaa ka hartay tartanka Champions League kadib markii looga badiyay gool iyo waxba.